السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago qisadii gabadhii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare ka noqotay dalka Hindiya. Indira Gandhi waa gabadhii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare ka noqotay dalka Hindiya. waa gabadha uu dhalay ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Hindiya yeelato Mr. Jawaharlal Nehru. waxa uu ilmo kala ahaa iyada kaliya, waxayna dhalatay 19 November 1917. waxbarashadeeda jaamacadda waxay ku soo qaadatay Oxford University waddanka UK. waxayna u dhaxday Furiz Gandhi oo ay u dhashay laba wiil, waxaana labadeed wiil kala oran jiray Rajiv Gandhi iyo Sanjay Gandhi. ninka ay nolol wadaagga ahaayeen wuxuu aad ugu soo horjeeday aabaheed. iyadoo ka faa'iideysanaysa sumcadda sare ee aabaheed lahaa, waxay isu soo taagtay baritanka jagada ra'iisul wasaaraha. waqtiga aabaheed maanu dhiman waa uu noolaa. dadaal badan iyo juhdi 1966 ayay ra'iisul wasaaraha Hindiya loo doortay. tartanka oo ay kula jirtay rag dhanka siyaasadda aad ugu xeel dheer, nasiib wanaagsan ay kaga adkaatay markii ay noqotay ra'iisul wasaarihii Hindiya. waxaa khalaas ka dhex abuurmay dowladdii ay hogaaminaysay iyo kooxaha Siikhiska, ka oo dagaal xoog leh ka dhex abuuray dowladda iyo kooxaha. amar ay siisay ciidankeeda in ay burburiyaan oo dhulka la simaan macbadkii weynaa oo ay lahaayeen Siikhiska lana oran jiray Golden Temple. iyagoo fulinaya ciidanka amarka ra'iisul wasaaraha ay madaafiic ku garaaceen oo dhulka la meel dhigeen macbadkii weynaa ee ay lahaayeen. Indira waxa ilaaladeeda gaarka ah ka mid ahaa askari Singha. kooxda dowladda ay ishayaana ka abtirsada subax hore aroora iyadoo qasrigeeda ka soo baxaysa ayuuna toogtay 31 Oktoobar 1984. xilligaa waxay haysay jagada ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya, waxayna noqotay haweeneydii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare ka noqotay dalka Hindiya. talow goormay dhici doontaa in Soomaaliya haweeney ka noqoto ra'iisul wasaaraha dalka ama madaxweynaha? muxuu ku leeyahay ra'yigaaga daawada?